keedii markii uu yimina wuxuu yidhi ku hor gowrac magaalada baaqigiina halkaa birta lagu mariyey reer samarqanda markaa naftii baa isugu timi reer samarqanda naftii baa haysata reer samarqanda waxay isku dayeen boqorkii meesha maray 50,000 oo askari buu u sii dhigay oo uu meeshan kaga tegey 50,000 ee askaree meesha joogay ee madaxdoodiiba ka tagtay iyana waa cabsadeen tiradu wax ma tarto ee dadka tayadiisa iyo iimaankiisa iyo intay alla rumaysayin baa wax badan tara magaaladii markii dhan walba xisaar lagaga sameeyey go'doomin markii dhan walba lagaga sameeyey ayuu ciidankii dhammaaye meesha magaalada lagaga sii tegey waxay ahayd inuu magaalada ka soo baxo dabadda ku dagaalamo dabadda uma bixine magaaladii gudaheedii buu galay qalcaadkii dadku ku jireen buu la galay isla markaana waxay gaansadeen go'aan ah inay isdhiibaan dabeetana dadkii magaalada joogaa ku qayliyo waxaa la isku dayay in la qanciyo fula baqa cararaya dee cidima joojin karto waa diideen waxay aqbaleen samarqanda magaaladii samarqanda la odhan jiray inay iyana dhiibaan dadkii markuu sidaa arkay culammadii iyo dadkii baa wada hadlay waxaa la yidhi war kuwani askarna maa cidinayna difaaci maysa aan isdifaacno aan wax iska celinno 70,000 ayaa markaa soo baxay oo dadkii magaalada degganaaya sheefoodiiyo warmahooda qaato o yidhi waa isdifaacaynaa dadka kani waa dad xamaasade hayso laakiin maaha dad military trained ah dad ciidannimo loo tababaray maaha waa dad u nacay iyagoo faramadhan inta loo yimaado in birta la mariyo oo la gowraco waayo waxay ogyihiin magaaladii dhammayday isdhibtee bukhaaro ahaydba sidii loo galay marka kollayba waa dhimanaysaan bay leeyihin inay idinkoo soo jeeda dhinta waa soo baxeen jinkis khan waa khabiid taagtiyahanah 70,000 markay soo baxeen oo u garanaya inaanay ahayn raggii militariga ahaa ee dhabta ahaa ayuu wuxuu sameeyey taktiig dagaal oo ah aan u baqa cararo dadkii markii la isku soo baxayba wuu u baqa cararay ciidankiisii wuxuu faray inay baqa carar sameeyaan baqa cararku waa inaad iska dhigto sidii nin jabay oo cararaya oo tegaya laakiin xeelad dagaal buu wadaa ma rabo waa soo baqa cararay dadkii awalba xamaasadaysanana waxay islaahayeen wallahi waa kaa gaalka idiin jabay seeftaa lagala daba cararay waa laga soo daba aguumay ciidamadiisii qaybuu meel sii dhigay dadkii markuu magaaladii kala baxay ee uu gaar ula baxay ayuu kamiinadii xagga dambe ka mareen waxaa laga xidhay xaggii magaalada iyo midadka ay ka heli lahaayeen dabeetana labada dhinac baa askartiisii ka gashay 70,000 madaxa laga jaray 70,000 ee soo baxay 70,000 madaxa laga jaray dufca waaxida mar keliya 70,000 oo reer samarqanda ah oo intoodii iimaanku uu ku jira wax isbaday ah iyagana la gumaaday maxaa soo hadhay magaaladii buu ku soo noqday markaasi oo go'doomiskii buu ku bilaabay ciidankii 50,000 ee war dagaalama looga taag waaye gudaha ku jiray jinkis khan bay la xidhiidheen waxay yidhahdeen waa isdhiibaynaa laakiin nabadgelyana sii dadka intii kale magaalada ku hadhay way diideenoo warsaani si maaha baa la yidhi qoladii ciidanka ahayd way ku adkaysatay tataarkuna wuxuu yidhi nabadgelyadaan ogolay dabeetana albaabadii magaalada ay qasab ku subeen qasab bay ku fureen waa askar shacabtana ka adag waa halkii gabayaaga carbeed muxuu lahaa asadun calaya wa fi lxuruubi nacaamatun aniga buu yidhi markaa way arkaana waa libaax dagaal markuu dhacana waa goraya buu yidhi waa cararaya
waa askar shacabkan iyo masaakiintanna ka adag, halka raggu isku haya marka la taagana calanka cad bay geynayaan. dadkii waxay ku qasbeen albaabada in la furo. magaaladii samarqanda ahayd albaabadaa loo furay. dabeetana jenkiskhan iyo ciidankiisii baa yimi. wuxuu yidhi shuruuda heshiiskee nabadgelyada a ku helaysaan waxa weeyaan: kow, hubka soo dhiiba iyo fardaha iyo xoolaha, idinkana waxaan idin gaadhsiinayaa dhul nabada iyo meeshii aad rabteen. waa ciidankii dee dawladda. markaa wuxuu leeyay wixii hub ah iyo fardo iyo dawaab aad rarataan, xoolo wixii ah la soo wareejiyo, idinkana waan idin geynaya, waa idin kaxaynayaa, dhul nabada meeshii aad doonaysaan baan idin qadabadsiinaya. waa rag dee jabay, yacni fulaha haddii inan yari u hanjabo, inanka yar xooggiisu uma muuqdee digdigtiisaa u muuqata. waa jabeen nimanka kani. maadaama ay jabeen, hubkii iyo wixiina waxay idhaahdeen waa kan naga qabo. ciidanku wixii uu hub haystay meel buu ka dhigay. waa un nidaamkan maantaba la isticmaalay. cunaqabatayn ku soo roga, hubka laga dhigo, yaan waxba laga iibinin. waa kan maalinta dambena oo lagu duulaa marka wax walba wakhtiga laga dhigo. hubka oo dhan markii uu ka dhigay ayuu magaalada soo galay. dabeetana wuxuu amray in raggooda iyo dumarkooda iyo carruurtooda kuwan waxba inaan laga sii dayna la laayo magaalada tan. wixii xoolaana la qaado, dadkana in la cadaabo ilaa iyo xooluhu halkay ku qarsoonyiin inta ay ka sheegayaan. dumarka iyo carruurta wixii in la addoonsadoo la kaxaysto aanu cuntaminee ama weyn ama xanuunsanaya ama kuwaana ma wadwadi karnay hala dilo. jaamica magaalada, masaajidka ugu weyn ee magaalada ku yaallana hala gubo. jenkiskhan magaalada tan dhulkuu la siba. bukhaaro wixii ku dhaceen samarqanda iminkana sidan ay u socoto, cid muslima oo soo caawisay oo soo kacdayna ma jirin. boqor yaroo waliba wuxuu islaa haddii adigu dawladdaadii yarayd iyo xuduuddaadii iyo intaadii iyo askartaadii iyo waxaaga waad haysataa, reer hebel baa la laynaya, adiga maxaa kaa galay? bale waxaabaa laga yaabay inuu ku farxayo, dee dagaallo horay wada galeena ways hayeen. waxbaa la yaamin, waa waxa maanta dunida ka socda une. falujaa la liqaya, inta kalea daawanaysa. falastiin baa la liqaya, inta kalea daawanaysa. waa nafsi shay. jenkiskhan magaaladii samarqanda la yidhaahdo samarqand ayuu fadhiistay. dabeetana wuxuu yidhi magaalooyinkan iyo layntooda tani wakhti badan bay iga luminaysa. magaalooyinka kan iyo layntooda wakhti badan ayay iga luminaysa. ee maxaan samaynayaa? 20,000 kun ee ciidankiisa uu raggii ugu khatarsanaaya ayuu soo saaray. dabeetana wuxuu yidhi dawladda tani jabtay, ee waxaan rabaa moxamed ibnu khawaarzim shaah madaxiisa in lay keeno. boqorkii ha laga daba tago, wax kaloo aa eegtaan yay jirin, socda, boqorkii baan idiin diray. isna wuxuu degay samarqanduu iska degay. utlubuuha ina kaana walow tacallaqa bisamaa buu yidhi bay idhaaheen. meel kasta uu jiro ninkaas raadiya, samada hadduu qabsadaha ka hadhina. waa istihzaa bilmalaayiin almuslima. u fiirso, waa 20 kun oo askari. dawladda dhan oo 2-3 magaalo laga haysto intii kale dhexta ayuu u diraya. waa caasimaddii waddanka meeshuu ku socdaa. 20 kun baanu u diray marka kan. soo qabta buu yidhi madaxweynihii waddanka. ninkii moxamed ibnu khawaarzam shaah ahaa waa kii cararay. magaaladiisii orjanda lo odhan jiray buu tegey. wixii uu ciidan urursan kara u urursaday. meeshii buu isu joogay. wakhti yarba intaan la joogin waaba tataarkii oo xiimaya, muslimkii oo dhan soo dhex jeexay.
organda maraya. organda waxaa mara nahru jiixoonkaynu sheegayno. webiga markaa dhankiisa galbeed bay magaaladu ku taallaa. dabeetana webiga sad weyn buu leeyahay, yacnii wuxuu leeyahay biyo xidheen weyn ayay meesha ka samaysteen. 20,000 ee askari oo yaacayo tataarka ahaa baa soo galay, dhinacii bari bayse soo taageen, wabaa ka xiga magaaladii. say u tallaabi doonaan. qolada tani waxay arkaan mar haddii webigii weynaa dee meesha ka xiga inaan cidina doonyana ma joogaanoo meesha wixii yaallay waa laga qaaday, lama rajaynaya in cidi ka soo tallowdo. taktiik military bay nimankan inay isticmaaleen. markay meesha yimaadeen waxba waayeen, looxaan bay dhiseen, dabeetana harag bay ku dahaadheen. loox xeedhoo kale la sameeyey, harag baa dabeetana lagu dahaadhay, wixii qalabee ka qoyayay oo dhan baa lagu guray. dabeetana fardihii baa laga daadegay, faraskaa webiga lagu ridayaa, ninkana farasku dabada qabsanaya, looxan weyn iyo waxaana gacantu ku qaadaya. farduhu waa dabbaal yaqaanin, faraskaa dabbaalanaya oo ka tallaabaya, askariguna faraskaasuu dabada haysanaya, askariguna wuxuu gacanta kale ku haynayaa bahashan dhan buu jiidaya, looxan dhan ee alaabtu saarantuu jiidaya. nidaamkaasay kaga tallaabeen. 20,000 ee askari iyo qalabkoodiiba xagga shishaa loo tallaabiyey. intii waxaanoo ciidani soo tallaabayaan xaggee lagu maqnaa? dowladda mukhaabaraadkeedii miyaa la hurday? sidee wax ahaayeen? lama garanayo. maxamed khawarzam shaah iyo ciidankiisii wuxuunbay idhaa kala qaadeen. nimankii ciidankii tataarka oo ka soo tallaabay webigii oo dhankii kala taagan. maxamed khawarzam shaah markuu ogaaday in lasoo tallaabay, koox ciidankiisii ka mida iyo waxbuu kaxaystay, waa dhaqaajiyey, waa ka baxay magaaladii. isagoo aan waxba eegin ibnu athiir wuxuu leeyahy waraxala moxamed khawarzam shaah laa yalwi calaa shayin fii nafarin min khaasati. cidna isagoo aan dib u eegin waxoogaa yaro kooxdiisii u kaxaystay, dabeetana wuu baxay. wuxuu qabtay nisabuur. nisabuur waxay ku taallaa koonfurta arjanda ayay ku beegan tahay. maadaama uu cararay ciidankiina, madaxdu de hadday kaa carartay ciidanka intii kalena waa iska kala yaacday. laakiin 20,000 ee askari nidaam ayuu ku soconayay. ninka jinkiskhaan la yidhaahdaa awaamirta sideeday u fulinayaan. ma odhan magaalooyin gala cid qabta, aniga ninkaa ii doona bay yidhaahdeen. ciidankii markuu kala yaacay, ninkiina uu baxsaday, magaaladii may eegin, odaygii cararay bay ka daba tageen, magaaladiina waa iska dhaafeen. madaxweynihii waa rooray, wuxuu rooraba magaalada naysabuur la yidhaahdo oo koonfur ka xigta ayuu yimi. kooxdanina waa ka daba timi. waxba may dilin, waxba may boobin, waxba toos bay u socdaan. muslim tiro badan bay dhex marayaan. muslimka laftiisiina waxay is idhaahdeen waar baladan haddii ilaahay idinka badbaadiyo beelaan isku taataabinina iyana haydin dhaafaan, iyana cidna ma taabtaan, muhiimaddooday u socdaan. dadkii iyo askartii iyo wixii kale meel kaga soo horbaxaana nimankan aan idinba taabanayn, idana ha taabanina la yidhaho jidkaa loo baneeyey. jidka markii si fudud loogu baneeyey, odaygii bay daba jabacsadeen. intii aanu ciidanba urursanin ayaa warku soo dhacay ee odhanaya naysabuur nimankii waa dul taagan yihin. 20,000 ee askar oo xiimaya naysabuur bay joogaan. markuu warkaa maqlay madaxweynihii, waxoogaagiisii intuu urursaday ayuu maazandaraan magaalo la yidhaahdo taw ugu siiyey. waa ka baxay tiina, waa eeraan oo magaalo ku taalla. naysabuur markayse soo taageen baa la yidhi madaxweynihii waa baxay, kumay weecan magaaladii, odaygii bay ka daba tageen. magaaladii iyana waa iska dhaafeen. madaxweynihii sidii u ordayey wuxuu soo galay